ugu sareeya dalkeena ee madaxtinimo ay ku fadhiistaan. Waa 3 nin oo taariikho kala duwan leh, qaarkooda dhaliil iyo ammaanba way leeyihiin, inkastoo dhaliishooda iyo dembiyadooda ay aad u kala weyn yihiin. Waxaan eegi doonaa saddexdooda midka ugu taariikhda xun iyo midka ugu taariikhda wanaagsan, anagoona mid walba dhowr qodob ka soo qaadan doona madaxtinimada ka hor qaladkii uu dalka ka galay iyo madaxtinimada kadib qaladaadkii uu dalka ka galay. Adinka ayaana la idinka rabaa kan ugu taariikhda xun in aad hoos ku soo qortaan. Lambar 1, waxaan ku bilaabaynaa madaxweyne Shariif Sheekh Axmed. Sheekh Shariif inta madaxweyne loo dooran ka hor wuxuu ahaa dabley huwaysan, wuxuuna ka mid ahaa raggii aasaasi midowgii maxaakiimta ee maanta isku bedelay ururka loo maari waayey ee Al-Shabaab. Wuxuu sabab u noqday in ciidanka Itoobiya ay dalka soo galaan. Wuxuu sabab u noqday in ku dhow 100,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah inay ciidanka Itoobiya ku gumaadaan dagaalkii Daynuunay. Kadib dhiiggii faraha badnaa ee dartiisa u daatay wuxuu go'aansaday inuu xabashadii hoos tago, asagoona dantiisa ahayd mar un madaxweyneydhaha. Sababtoo waxa uu qoriga u watay haddii ay diin iyo janno raadin ka ahaan lahayd xilligan dunida ma joogeen oo dagaalka ayuu safka hore ka gali lahaa si aan jannada loogaga hormarin. Haddii ay dal difaacid iyo wadaninimo ka ahaan lahaydna xabashadii xasuuqa xun u geysatay shacabka Soomaaliyeed ma hoos tageen. Markii uu madaxweyne noqday kadib maxaa dhacay? Madaxweyne Shariif xilligii uu dalka xukumayay waxyaabo badan oo lagu amaano way jiraan, sida in dalka intiisa badan uu ka saaray ururka Al-Shabaab, in gudaha Muqdisho uu doorasho ku qabtay kadib 40 sano, in uu dalka ku-meelgaarkii ka saaray, iyo in uu qoray dastuurka ku-meelgaarka ah ee maanta dalkeena lagu dhaqo. Haddana dhaliisha ugu weyn uu leeyahay ayaa waxay ahayd in uu baddeena muran geliyey, inkastoo uu isaga iska inkiray in uu wax ka ogaa heshiiskii badda looga gacan geliyey dalka Kenya. Lambar 2, madaxweyne Farmaajo. Farmaajo ka hor intuusan madaxweyne noqon waxaa lagu eedeyn jiray asaga iyo nin lagu magacaabo Michael Jiis in ay faraxumeeyeen gabar Soomaaliyeed uu dhalay, abwaan geyga Soomaaliyeed caan ka ahaa oo lagu magacaabi jiray Xarees Ciise Kaarshe. Kadibna reerkiisa waxay ka baqeen in gabadha walaalaheeda ay dhibaateeyaan, sidaas ayaana dalka looga dhoofiyey. Wuxuuna nolol cusub ka bilaabay dalka Mareykanka, asagoo waxbarashadiisa ilaa heerka jaamacadeed halkaasi ku qaatay. Kadibna waxa uu qoray buug uu aflagaada aan xad lahayn ugu geystay qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee uu maanta sheeganayo in uu madaxweyne u yahay. Farmaajo in ka badan 30 sano wuxuu nolol raaxo leh ku qaadanayay dalka Mareykanka, weligiisana dalkiisa hooy dib uma soo booqan. Dhibaatooyin fara badan oo dhacay wax gargaar ama caawinaad ah uu ku taageerayna haba sheegin. Kaliya dalkiisa wuxuu soo xasuustay markii uu u baahday in uu ka shaqeysto amaba uu lacag ka sameeyo. Wuxuuna yimid markii ugu horeysay asagoo ra'iisul wasaare ah, oo haddii aan xil loo magacaabi lahayn ma imaan lahayn. 6 bilood kadib markii xilkii laga qaaday, hal habeen xitaa kuma hooyin oo isla markiiba wuxuu dib ugu laabtay halkii uu ka soo kictamay ee Mareykanka. Markii la gaaray doorashadii 2012 ayuu haddana dalka dib ugu soo laabtay asagoo doonaya in uu madaxweyne noqdo si uu dalka uga shaqeysto. Fashil iyo wajigabax uu kala kulmay doorashada kadib wuxuu dib ugu laabtay dalka Mareykanka, wuxuuna maqnaa muddo ku dhow 5 sano. Muddadaas uu maqnaa xitaa hal ceel biyood uma qodin tuulada uu tolkiisa degay iska badaa Soomaali kale uu wax u qabtee. Wuxuu soo laabtay haddana doorashadii kale asagoo hunguri doona. Ugu dambeynna waa uu ku guuleystay tartankii madaxtinimo. Sidaas ayuuna ilaa ay hadda ku joogaa dalka oo hadduu guul dareysan lahaa xilligaa ma joogeen. Markii uu madaxweyne noqday kadib wax lagu amaani karo uu qabtay ma jiro. Wuxuu Itoobiya u dhiibay muwaadin Soomaaliyeed. Wuxuu Itoobiya ku wareejiyey 4 dekedood. Wuxuu Qatar iyo Norway ku wareejiyey ilihii dhaqaalaha Soomaaliya sida shidaalka dabiiciga ah ee dalkeena ku jira. Wuxuu Shiinaha u ogolaaday in ay xaalufiyaan kalluunka baddeena ku jiray. Wuxuu Kenya ugu tanaasulay dacwadii badda. Wuxuu caburiyey shacabka Muqdisho oo canshuurtooda ku naaxay timahana ku beertay. Wuxuu burburiyey maamul goboleedyadii dalka asagoona dhaqaalihii howlaha dawladda lagu kala socodsiin lahaa intiisa badan u isticmaalay burburin iyo caburin. Wuxuu shacabka Soomaaliyeed ku kala beeray cuqdad iyo isnaxeeb. 24 saacadood baraha bulshada wax aan qabyaaladii aflagaada ahayn dhalintu kuma hayso. Isku soo wada duub, Farmaajo waxaan dhihi karnaa waa madaxweynihii ugu liitay abid ee Soomaaliya soo mara, waana madaxweyne dhan walba ka fashilmay. Lambarka 3, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh Maxamuud ka hor inta aan madaxweyne loo dooran ma ahayn shakhsi siyaasad ku jira, sidoo kalena qayb kama uusan ahayn kooxihii huwaysnaa ee awoodda dalka ku loolamayay. Sida xaqiiqda ah ee qof walbana ay og tahay, wuxuu ahaa macallin iyo professor. Wuxuu soo saaray dhalinyaro badan oo jaamiciyiin ah, qaarkoodna maanta xilal sare ka haya dalka. Burburkii dalka kadib wuxuu ka mid ahaa raggii isku xilqaamay in ay dib u yagleelaan goobihii waxbarashada, iyadoo dalka uu marxalad adag ku jiray. Dhibaato badan oo u maray in la helo carruur Soomaaliyeed oo iskuulada u kacaya. Qofka bani aadamka been lagama sheego. Xasan Sheekh madaxtinimada ka hor wax dhaliil ah uma hayno, sidoo kale wax dambi ah oo xilligaas uu galayna ma hayno. Markii madaxtinimada loo doortay, waxa lagu xasuusto oo uu bilada dahabka ku muutaysan karo waa in uu dacwadii badda geeyay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. Inkastoo dalka Soomaaliya uu yahay uusan musuqmaasuq iyo wax isdawmarin ka marneen, haddana dadka dhaliila Xasan Sheekh siyaasadiisa uma hayaan dhaliil weyn oo khiyaano qaran lagu sheegi karo. Inta badan waxay u soo qaataan dhaliishooda ugu weyn waxyaabo iska basiid ah oo aan dalka dhibaato weyn u keenayn, sida in uu bakhtiga ciidamada Kenya u sujuuday,
taasoo aan dalka wax saameyn ah ku yeelanayn oo asaga un ay ku koobnaanayso waxaana dembigaasi kula xisaabtamaya allihii abuurtay sidoo kale dhaliishooda labaad ee ugu weyn waa inuu jigjiga ka dhaanteeyey taasoo iyadana wax saameyn aan ku lahayn dowladnimada Soomaaliya balse asaga un shakhsiyan ay damiir xumo ku tahay dhaliisha saddexaad ee aan macnaha lahayn waxay dhahaan gabdho Soomaaliyeed ayuu Sacuudiga ka iibsaday caalamka sida la ogyahay dalalka shaqaale way kala qaataan gabdhaha Soomaaliyeedna Sacuudiga tahriib ayay ku galaan si sharci darro ahna way ku shaqaystaan ayagoo la kulma tacadiye kala duwan balse markay dawlad wakiil ka tahay si sharci ah ayaa dalkaasi ku galaysaa si sharci ahna waad ku shaqaysanaysaa adigoon wax dhibaato ah la kulmin sida tarxiil iyo jirdil waxyaabaha kale ee lagu dhaliila Xasan Sheekh waa waxyaabo aad isaga fudud sida guryo ayuu dhistay iyo wax la mid ah laguma hayo khiyaano qaran sida in uu khayraadka dalka iibsaday in uu muwaadin Soomaaliyeed cadow u dhiibay in uu dekada iibsaday in uu shidaal iibsaday in uu kalluun iibsaday iyo in uu badii iibsaday haddaba waxaan sugnaa waa kommentiyadiina iyo midka aad uga cimaamadaan in uu yahay madaxweynihii ugu taariikhda xumaa abid ee dalkeena Soomaaliya